صوم بشهر رمضان صوم. bishaaro Sahid Engineering and Real Estate Companies waxay dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo macaamiisha sida joogtada ugu xidhan shirkadaha ganacsi ee Sahid ugu hambalyeynaysa dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan. anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Sahid Transport iyo qaybaheeda kala duwan dhammaan waxaan salaamaynaa oo ugu bishaaraynaa Ramadaan Kariim dadka Islaamka ah khaasatan dadka Soomaalida ah iyo dadka ku nool dawladda deegaanka Soomaalidaba waxaan leenahay dadkaas Islaamka ah anagu ka shirkad ahaanimo wax badan baan soo wadnaa oo ugu talagalsanahay. shirkadaha ganacsi ee Sahid waxay sidoo kale ugu talagaleen bisha barakeysan ee Ramadaan barnaamijyo kala duwan oo ay kaga qayb qaadanayaan doorkooda ka qaybgalka arrimaha bulshada iyo taakulaynta danyarta qabashada iyo maalgelinta tartanka Quraanka Kariimka sidoo kalena waxaa qayb ka ah barnaamijyada idinku talagaleen inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan afurinta danyar fara badan oo ka qabsoomi doonta in ka badan 5 magaalo oo kamid ah deegaanka Soomaalida oo ay noo maalgelin doonaan shirkadaha ganacsi ee Sahid Engineering and Real Estate Companies oo caan ku ah wax soo saarka dib u casriyeynta iyo dib u habaynta dhammaan gawaarida kala duwan ee xamuulka iyadoo loo adeegsanayo habab casri ah oo tayo sare leh waxayna sidoo kale samaysaa shirkadu rimuudhada baabuurta amaba buudhiga gawaarida istiidka loo yaqaan iyo waliba samaynta booyadaha shidaalka iyo kuwa biyaha waxyaalo badan oo ugu talagalsanahay baa jirta bisha Ramadaan oo kamid tahay inaanu dad badan afurino oo magaalooyin kala duwan ilaa 5 magaalo ah iyo inaanu tartanka Quraanka qaban doono oo qaybtii u badan anagu aanu bixin doono waxaan leenahay dhammaan dadka Islaamka ah Ramadaan Kariim ku sooma wanaag iyo barwaaqo illa subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa dadka Islaamka ah islaynayana inuu kala qaboojiyo deegaanka abaaruhu ka jiraana waxaan rajaynayaa Allah subhanahu wa ta'ala inuu roob degdeg ah uu siiyo oo ay ku soomaan qabow iyo barwaaqo ku xidhnow lana wadaaga asxaabtaada faalladaadu waa muhiim dagaara media waa saaxiibka dadweynaha.